habeen wanaagsan dhamaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijkeena daqiiqadaha wararka taariikhdu waa 28 Oktoobar sanadka 2023 Afrikada barna saacadu waa 8 fiidnimo oo gow ah qodobadan caawa idin hayo waxa kamid ah Israa'iil oo halkeedii ka sii wada duqeynta Gaza ay ku hayso dhimashadu way sii kordhaysaa dhaawacu waa tirabeel khadkii internetka iyo isgaarsiintana waa laga jaray magaaladaasi Gaza ninka waramaya inuu indhihiisa ku arkay nin shabaab ah oo rabay inuu isqarxiyo biibtadii kale iga soo horjeeday oo dad aad u badan ay fadhiyeen markuu maray khilaafka siyaasadeed ee ka taagan Puntland wali waa la isku haystaa iyo qodobo kalaba aan ku bilaabay Israa'iil ayaa xalay duqeyntii ugu darnayd uguna xumayd u geysatay magaalada Gaza olol qiiq uuro ayaa cirka isku shareertay Gazana xalay waxay ahayd mid kamid ah habeenadii ugu darnaa taariikhda iyo qaxootiga Al-Shati oo 9,000 oo qof ay ku jiraan adduunyadu aad bay u hadal haysaa banaanbaxyo ayaa socda balse reer galbeed wili dhag jalaq way u sii laayihiin eedahan Israa'iil loo jeedinayo wahgaad nin shacab ayaa ka waramaya inuu indhihiisa arkay nin shabaab ah oo rabay inuu isqarxiyo waa sheeko cajiib ah bal ila daawada biibtadii kale iga soo horjeeday ay ku jiraan aan inta gabadhii u taagaan eri ma soo xaroonaye koobkaaga qabso albaabkaagana soo xiro waa ka dhaqaaqay meesha isla wararka shabaab ayaan ku jirnaayo mid kaloo shabaab ah ayaa soo baxsaday dawladdu isu soo dhiibay wuxuu ka waramayaa xaalka shabaab sida uu hadda yahay shacabka deegaanka roogo mayn daryeelow meelan hak argayna hatta annaku kooyorto mal daryeelow mareer iyo hirmaan qofka ani kegling hir biili ka shib dharantis lu kala boomo beselan reeba dharantis lu kala ya ullahan gurida shan qof li qof amal yaddo hanan daaja waayelka gibirta bilaanayt duwayle wala dhombo 10 ko dheelan tume waan 10 ko dheelan la dhagama manan oo inshaag bad waayelun eraayo bukaleeday inta may ku weydiiyay eraw meelana ku qoyana ari horto 10 kaasa ka aray telefoon golku hareey shan maalmood teleefankaysi yalan kun dawrugas geed todobaakin ko may kiliya teleefan mi jiro leer wahagaag haatana Kenya Faarax Macalin Dawaara oo ka tirsan baarlamaanka Kenya kana mid ah Soomaalida reer Kenya iyo siyaasiyiinta ragga ugu cadcad ayaa garab istaagay hadalkii dhawaan Kenya ka soo baxay oo ahayd in midnimada Soomaaliya ay muqaddas tahay Kenya ay adeecsan tahay jiritaanka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed AU-da markay OAU la dhahayay in go'aan lagu gaaray in wadan Afrikaan ah oo jiro aanan xuduudihiisa la bedelin oo la kala gooynin ilaa markay iyaga ku gaaraan go'aanka heshiiska waanu kala go'aynaa labadaba way fahamtay Soomaaliya maanta hadday Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliya ka waramaya isbedeladan xajka ku yimid maxaa iska bedelay xajka wax kale iskama bedelinay xujaydeena Soomaaliyeed oo qiimaha badan leh waxaan leeyahay diyaar garowgiisa wax iska bedeleen marka waxa weeyaan dhilxijja ayaa waxa bilaabatay ka shaqeynta ama u diyaar garowga xajka oo maxay ku bilaabatay warqadan la qeybiyay buu bilaabay wasiirku uu qeybiyay dhammaan dawladaha dawlad walbana waxaa loo sheegay sanadka soo socdo xisadeeda iyo tirada ay ku iman doontaa loo sheegay annaga sanadkii hore 11,500 bay ahayd xisadeena marka laga reebo bicada sidii bay ku soo noqotay oo 11,500 baa warqadeena Soomaali ahaan noogu qoran tiradeenu waa intaas walaalaheena ziyaadaan ka codsanay qanawaadka diblomaasiga rasmiga aan u marinay jawaab inaan ka helnana waan rajaynaynaa horta bishaas uu xajka soo bilowday oo diyaar garowgiisii la bilaabay oo xisaskii xajka la qaybiyay qolo walba xisada ama qaybtay heli lahayd baa loo sheegay annagana waa naloo sheegay dawladaha muslimiinta kalena waa loo sheegay muqaddadka waxa ku qornaa bisha Rabiicul Awwal ee hadda naga dhamaatay waa dhamaatay Soomaa Rabiicul Awwal oo hadda dhamaatay afar arrimood baa laga rabay dawladaha kale oo nala mid ana laga rabay afarta waxay ahaayeen masaarkii elektarooniga inaan furano waxaana laga rabay shirkadaha xajka la siiyay inaan iclaanino intay waliba tartan galaan mar hore
iclaamino waxaana laga rabay shirkadii la siiyo xujayda inay qaado duulimaadka in iyadan heshiiskeeda aan gudbino waxaana laga rabay bangigii inaan ka shaqaysiino hadhow bahasha aan ku ridan lahayn qarashkeena si hadhow masaarka loogu wareejiyo intaasaana laga rabay intii qaarna waan qabanay qaarna haddeer ayaan gacanta ku haynaa hagaag aan Somaliland aadno Axmed Ismaaciil Samatar ayaa Boorama gaaray waa la soo dhaweeyay wuu hadlay oo waliba wuxuu taabtay khilaafka iyo ismariwaaga Somaliland ka taagan miiska hadii lagu garaacadna waa inaad miiska garaacdo taana inaynu isla ogaano waa lagama maarmaan gobonnimada iyo guushu waa loo dhididaa waa loo tabcaa waa loo adkaystaa waa la isku taagaa taas ay naga dhaxayso gobolka awdalna anu waxaan qabaa awdal iyo dadka ku nool salal horena way u ahaayeen imikana way yihiin mustaqbalkana inay yihiin dadka badbaadin kara Somaliland inaynu nahay waxaynu maanta sheeganayna ma aha ee taariikhda Somaliland ayay ku jirtaa dadka degan awdal iyo salal oo goor walba miyir gooniya iyo maskax gooniya iyo qalbi gooniya miiska soo dhigo oo maxaan ku lahayn marka wax ka qabtaa dhaawaca kolba wadanka yaala halka taariikhdu ina dhigtay ee safka hore ah ee waayeelnimada iyo maskaxda furan iyo kartidu ay jirto halkii un baynu imikana ka miistaynaa halkii un baynu ka miistaynaa wahagaag meelaha la isku haysto khilaafaadka iyo doorashooyinka Somaliland oo kaliya ma ahan Puntland xaalkeedu waa kiran yahay isimada dhaqanka ayaa maalmahan bal la kulmayay dhinacyada ishaya xukuumadda mucaaradka iyo guddiga doorashooyinka wali meel wax la islama dhigin xukuumadda dhinac bay wax u wadaa mucaaradkana way diidan yihiin waxa xukuumadda ay wado isimadu laftirkooda iskuma waafaqsana sida xaalka uu noqon doono waxa la isku hayaa laba qodob xukuumadda doonaysa doorasho qof iyo cod ah taasoo tuhun la gelinayo ah inay muddo kororsi rabto iyo mucaaradkoo sheegaya in lagu noqdo sidii awalba la ahaan jiray oo 66 xildhibaan ay qabiilada soo doortaan wahagaag raxmaadkii alle ayaa meelo badan ka da'ay khasaare ayaa dhashay garow ayaa ka mid ah meelaha biyo fariisiga ay ka dhaceen intaanan sheekada garow idin gudbinin bal ila daawada muuqaalkan quruxda badan oo muujinaya roobabka da'aya iyo sidii u biyo fariisteen inkastoo meelaha qaar indhuhu ay u roon yihiin haddana xaafado idil oo garow ku yaala ayaan la geli karin reeraha deganna aysan banaanka u soo bixi karin shacabka xaafadahaasi ku nool ayaa eed iyo dhaleecayn maamulka caasimadda garow u jeedinaya eed baanu tirtanaynaa waxaanu maxay biyahaasaanu ka cabanaynaa roobka alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay waa u mahadinay laakiin waxaanu doonaynaa dadka cashuur qaadayaasha oo cashuurta naga qaada inay wax noo qabtaan oo hoos noo fiiriyaan ilaa shacabkoodii baanu nahay annagu maxay cashuur dhiibayaal baanu nahay inta cashuur biyo baanu la ku soo daraadaa meel walba cashuurta waana ku daraa wax walba waana ka qaadaa hoosna loo dhugto oo daadadka maxay biyaha qurmay oo guryaha iridooda jooga hanala ka hagaajiyo oo wax naloo qabto oo wax qabad buuxda baanu dawladeeda ka codsanayna gaar ahaan dawladda hoos iyo geedi u sareeyo maayarka maxay duqa magaalada waxaan ka codsanaynaa oo codsigeeda ku gudbinaynaa inuu maxay haytay oo wax naga qabto oo hoos noo fiiriyo wahagaag maanta waxaa lagu aasay magaalada Hargeysa nin abwaan ahaa suugaanta Soomaalidana aad loogu yaqaanay ilaahay ha u naxariisto marxuumkaasi balse maxaa dhacay intaan janaasada la tukanin nin baa damcay inuu isaga janaasada dadka ka bixiyo
sidan ayayna wax noqdeen. عبدو صفقة الشيخ بتكون أنا تكوني ولا كبار هاي صفقة كلها أنا تكوني ولا ما خلص صفقة أنا تكوني ولا صفقة الشيخ بتكون ولا على أنا تكوني ولا صفقة شوف كعس ولا إركين ولا هي الناس خايفة إنه يخلف صفقة وهجاك deegaanada SSC oo dhawaan maamul loo aqoonsaday ayaa hadda waxa lagu soo waramayaa in waxbarashada dugsiyada sare iyo imtixaanaadkaba la hoos geynayo nidaamka dawliga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya. runtii xaalad adag baa laga soo baxay ilaahay waxaan rajaynaynaa xaaladda mid ka khayr badan inay insha Allah tacaala aan gallo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu manaysto way waxaan leenahay haynaa maanta rejiimkiina meesha waa laga kiciyay magaaladeena waa noo xor wabiyo subax laga baqay ma jirto waa nimco ilaahay loogu mahadnaqo waxbarashadii insha Allah tacaala waxaan ku bishaaraynayaa sanadkan form 4 baa tihiin waa sanadkii ku dambeeyay high school ama dugsi jaamacad baad aadi doontaan imtixaankii waxaad ka qaadi doontaa dawladda federaalka Soomaaliya insha Allah tacaala hadii la yiraahdo laas caanood baana la idinkaga qaadi doonaa insha Allah tacaala roll number kalka la idinku siin doonaa shahaadana waxaan rajaynayaa in halkan shahaadana aad ka heli doontaan ilaahay idinkii daqiiqadii wararka caawa intaas ay noo joogo waad ku mahadsantihiin daawashadiina tan iyo kulan dambe nabadgelyo faa'iidooyinka adeega ibesa send money dirista lacagaha withdraw money qabixidda lacagaha airtime top up ku shubashada harmooyinka ku hadalka ibesa pay lacag bixinta ama tukaamaysiga loans and savings amaahda iyo kaydka ibesa global xawilaadaha ibesa mastercard virtual mastercard banking service adeegyada bangiga ibesa goor kasta iyo goob kasta macmiil weli hore ma u maqashay application-ka Banana Pay haddii aadan hore u maqal Banana Pay waa mobile money application kuu sahlaya inaad si fudud lacag uga dirtid adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta oo ma baahnid inaad xafiis booqatid waxaana inoo keentay shirkadda Tawakkal Express oo muddo ku siman 30 sano ka shaqeynaysay nidaamka xawilaadda lacagaha haddaba halkee ayuu ka shaqeeyaa Banana Pay waxa uu ka shaqeeyaa dalka Mareykanka waxaana lacagta uga diri kartaa adduunka oo dhan Soomaaliya iyo Kenya waxaad lacagta ku diri kartaa adeegyada mobilka gacanta sida Sad Sahal EVC Plus iyo M-Pesa Kenya waxaa sidoo kale ku diri kartaa adeega T Plus bangiga Sombank iyo xawaalada Tawakkal Express haddaba ka faa'iideyso Banana Pay oo ku sameysay qiimo dhibis balaadan oo ah 20% waxaana lagu adeegayaa qiimo jaban